waxaa magaalada Garowe soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay musharax madaxweyne Maxamed Cismaan Cali Maad oo ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada Puntland ee dhici doonta sanadka 2019 dadweynaha ayaa ku soo dhaweeyay duleedka magaalada halkaas oo mid u gacan qaaday musharax intaas kadib dadweynaha taageersan musharaxa ayaa ku soo dhaweeyay barxadda weyn ee magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland nabadoono uqaal waxgarad iyo ururada bulshada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan musharaxa waana soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol horeyna shaqadiisa iyo yaani dhalashadiisa iyo kornimadiisa iyo joogidiisa iyo waxbaan uga naqeen waa nin macnaha u qalma inuu maaragtay isa soo sharaxo ama uu qabto mas'uuliyadda guud soo dhaweynaya musharax Maxamed Cismaan Cali Maad waa soo dhaweynaya musharax soo dhawow musharax madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa soo dhawow waana nin istaahila qof kasta oo Soomaali shakhsi Soomaali oo kasta in la doorto iyo inuu wax doortaba xaq buu u leeyahay meeshaanina waxa weeye magaalada madaxdii Puntland nin kasta oo musharaxa in lagu soo dhaweeyo buu xaq u leeyahay maadaama ummaddu reer Puntland ay wada dooratay magaalada madaxda ay kulligood wada doorteen oo ninna uusan marti ku ahayn waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawow musharax Maxamed Cismaan Cali Maad gurigaaga ku soo dhawow Garowe ku soo dhawow reer Nugaaleed aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta sharafta badan iyo kalsoonida badan oo wajiyadiina ka muuqata oo aad ku soo dhaweynaysaan musharax Maxamed Cismaan Cali Maad aad ku soo dhaweynaysaan iyo odayaasha la socda aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxa weeye waxaanu leenahay dhinaca kalena la shukran cala alwaajib baanu leenahay Maxamed Cismaan waa nin reer Nugaaleeda waxa la yiraahdaa Maxamed Cismaan annaka waxaanu u wadnaa maanta waan idin wadnaa waxaanu isleenahay waa nin ammaano leh waa nin diin leh waa nin wax lagu aamini karaanu isleenahay marka labaad waxaan gaar ahaan u soo dhaweynayaa xafladan leh Maxamed Cismaan Cali Maad oo ku soo biiray siyaasiyiinta u tartamaysa madaxtinimada Puntland muddo badan buu naga maqnaa waa sugaynay inuu yimaado waxaan leenahay Maxamed soo dhawow u soo dhaweyn mayo siyaasi kasta anigu soo dhaweyn mayo Maxamed waxaan aqoon gaaraan u leeyahay waxa la yiri ninka rabtidina baratid ama jid la soco la mar ama jidin la cun marka Maxamed wax badan intaba waa wada maray aqoon badan baan u leeyahay waxaan waxa weeye nin himilooyinka ummaddu qabto haddii Ilaahay u garto inuu qabto ninay ka helayaan inuu yahay baan aaminsanahay musharax madaxweyne Maxamed Cismaan Cali Maad oo la hadlay dadkii soo dhaweeyay ayaa sheegay inuu tartami doono xilka madaxtinimada Puntland ee 2019 waxaan aad idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta xilkasnimada ah ilbaxnimada leh ehelnimadu ka muuqato isbedel doonku ka muuqdo ee aad barxadii Garowe caasimadii Puntland qalbigii Puntland aad nagu soo dhaweyseen dadka yaga maanta halkaan idinku yimid dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiinaan wanaagsan oo hufan waxa farxad weyn ii ah inaan maanta halkaan caasimadii Puntland barxadii wada joogno caasimaddu waa muraayada dalka waa meesha laga qiimeyn karo wadanka horumarkiisa waa meesha laga qiimeyn karo bulshada nolosheeda caasimadda waxaa yimaada wufuud shisheeya oo fara badan oo aan tagin magaalooyinka kale ee Puntland waa meesha laga diro warbixinteena waxay inoo leedahay qiimo gaar ah iyo micno gaar ah bay inoo leedahay qof kasta oo reer Puntland waa inuu sidaa u ogaadaa hadii Ilaahay xilkay ugu guureeyo waxaan isku dayaa jaamacad dawladdu leedahay inaan caasimadda Garowe ka hirgelin hadii Ilaahay waxaan hirgelin doonaa hadii Ilaahay dhinaca waxbarashada dugsiyo farsamo gacmeed ee lagu barto waxyaabaha bulshadu maalin walba u baahan tahay sida koronto yaqaanka tuubaystaha najaaradda makaaniga dhisaha iyo inta badan oo la mid ah
musharax maxamed cismaan cali maad waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ama mas'uuliyiinta u taagan xilka madaxtinimada puntland 2019 Janawari la filayo inay ka dhacdo magaalada Garowe. Asad Siciidaad, Puntland TV, Garowe.